laascaanood horta iyo meesha mashaqadan ka dhacday runtii inta aanan meesha ka taagnay aan caddayn waa qadiyad aan aad uga xumahay waxa meesha ka dhacay iyo negligency-ga dhacay iyo dhiigga meesha ku qulqulay runtii inaan aad uga xumahay horeyna ayaamihii mudaharaadadu ay bilaabmeen aan uga hadlay dee haddana ay faraha ka baxday qadiyadda meeshaan ka taagnahayna waxa weeye dadka deegaankaasi iyo dadkan kale ma mudna in ay may mudnayn mana mudnaan doonto in ay dhex maraan waxyaabo noocaas oo kale ah dadka deegaankaasina dembi iyo jariimad ay haba yaraatay cid ka galeen ma jirin laakiin waxaa jirtay intaas aan hadda sheegay in iyaga runtii ay tabanayeen oo laga geliyey taasna in badan aan ka hadlaynay qadiyadeedu marka way caddahay waxa weeyaan in dagaalkaana degdeg loo joojiyo ciidamada meesha joogana degdeg looga soo qaado gobolka laga soo saaro marka xageed ku talinaysaa in ciidamada la geeyo ciidamada waxaan ku talinayaa in la geeyo magaalada Og si dadku ay u helaan xasilooni ah in cid waliba dareento inay horta biis iyo nabad haysato deegaankooda iyo deegaanka ilaahay ku abuurayna ay u helaan inay horta dareemaan inay xorriyad ugu nool yihiin kadibna chance la siiyo dadku iyagoo nabadoo sidii ay ahaan jireen ah in ay dadku markaa bilaabaan wada hadal iyo wada xaajood ay mustaqbalkooda ay ku astaynayaan sida ay u wada noolaanayaan iyo waxa ka dhaxaynaya iyo waxaan ka dhaxaynaya taa micnaheeda marka waxa weeyaan militariga Somaliland gabi ahaan baa laga saaro dhulkaas aniga warkaygu wuu cad yahay militariga Somaliland inuu gobolka laga soo saaro dhiiggii hore ee daatayna aan dhiig dambe laga dabageyn cadaawadda iyo xumaantana aan halkaa la dhaafin ee halkaa lagu soo afjaro dadkuna si chance loo siiyo sidii ay u noolaan jireen u wada noolaayeen inay u wada noolaadaan kadibna markaa ay dadku wada hadlaan cabdirasaaq waxaad sheegtay inaad soo jeedinayso in militariga Somaliland dhulkaas laga saaro go'aanadii golaha dhaqanka ay gaareen ee ah inaysan Somaliland ka mid ahayn adigu siday kula muuqdaan aniga waxay ila muuqdaan in lagu ixtiraamo go'aamadooda waana raacsanahay in lagu ixtiraamo waana caddaynayaa awalna way mudnayd haddana way mudan tahay Somaliland iyadaa ogolaatay mar hore iyo mar dambaba shirkii talaax bay ogolaatay kadib markay arkeen dadkan in ay qadiyadoodu ay tahay qadiyad masiiri ah oo Somaliland inay ka qayb noqdaan iyo in kale aanay doonaynin in ay shiraan talaax baa lagu ogolaaday khaatuma taa waa in la ogaado haddeerna laascaanood shirkeeda dowladda Somaliland iyo maamulka Somaliland baa fasaxay oo ogolaaday maxsuulkii ka soo baxayna waxa weeye dadka deegaanku in aanay ku qanacsanayn inay ka mid noqdaan Somaliland oo ay ka baxeen taa waa in la ogaado inaan lagu bedeli karin xabad iyo dhiig qulqula waayo kaasi xal maaha wuu uga sii daray arrinta wuuna uga sii daray sidaa darteed waxaan leeyahay waa in lagu ixtiraamaa go'aanka iyo talada ay gaadheen oo meel kale looga wareegayo sidii kale loo wada noolaan lahaa iyo wixii doodee laga qabo arrintaa xilligeeda iyo timekeeda loo daayo laakiin maanta dhiiggan la joojiyo ciidankana laga saaro meesha cabdirasaaq cataash marka warkaagu wuu cad yahay waxaad taabacsan tahay go'aankii golaha dhaqanka SSC ee laascaanood cabdirasaaqow dadka siyaasadda maanta ama Somaliland ha noqoto ama Soomaalida kale gacmaha kula jira labay u qaybsamaan dad waa dad ay shaqo u tahay shaqo ka doonta siyaasadda dadna waa dad ummadda inay noolaato oo ay ku noolaato nololtay maanta ku nooshahay ka fiican dhirinaya anigu waxaan ka mid ahay dadka intijaaha doonaya inay kasii wanaagsanaato environmentiga siyaasadeed ee dadku inuu ka fiicnaado maalinta ka dambaysa sidaa darteed haddaadan cidda aad adigu ku matasho siyaasadda aadan go'aamada rasmiga ee bulsho aqbalin naftaadaad been u sheegaysaa dadka iyo deegaanka aan kasoo jeedo cidda u talisa ee go'aamada dhaqan ugu talisa ee bulshada ka mas-uuliya maanta aynu joogno waa dadka isimada ee laascaanood joogay 14 ah guddina waxa uu guddiga 3 iyagu ay doorteen qof kastoo deegaanka iyaga ka soo jeedaana wuu ku khasban yahay inuu ixtiraamo oo uu ku taagnaado horta taana waa caddaynaya iyadana waa insaa loo fahmo go'aanku waxa weeye cabdirasaaqow in aan anigu caddaynayo maanta laga bilaabo inaan ahay qof shacab oo ganacsada anigu xirfad baan leeyahay aan siyaasad ahayn oo kale anigu nin businessman aan ahay
ummadana la jeclaa inay wada jirto wada noolaato waxaan caddaynayaa in aan totally faraha kala baxay siyaasaddii Somaliland aan doonayo inaan noqdo qof shacaba oo ganacsada ah oo ummadda wixii khayr ah ee ay ummaddaasi ku wanaagsanaanayso ama nabad ha noqoto ama ha noqoto wax kale khayr ah inuu ka shaqeeyo mooyaane aan siyaasaddan ka shaqeynayno Somaliland xisbigaagii waa beri siyaasaddii aad ku jirtay doorashadii hankii aad rabtay waxoo dhan bannaankaad ka tahay cabdirasaaqow waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo dadkii sharafta lahaa aqoonyahanka ahaa dhalinyaro iyo gabdhaba lahaa ee aan soo wada shaqaynay ee ururka waa beri dhidibada ila taagay oo runtii dad aanan weliga ilaaweyna oo runtii juhdi iyo garab istaag aan caadi ahayn oo aan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayo ila galay inaan halkan aad uga mahadnaqo aan idhaahdo waxaynu u halgamayno u wada shaqaynayna waxay ahayd sharaf iyo dadka waddanka degan inay walaaloobaan tiina maanta farahay ka baxday ataashna wax kama qaban karayo waa berin wax kama qaban karayo sidaa darteed inaan iska casilay guddoomiyihii ururkaas aanna ka baxay siyaasaddii Somaliland aanna totally aan noqday qof shacaba oo doonaya inuu danihiisa ganacsi u madax bannaanaado dadkaana aad baan u mahadnaqayaa ehlu sharafka ah ee gobollada degan dalka meesha joogaanba ha ahaadee aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan gobollada maroodjeexa hargeysa berbera awdal iyo gobolka togdheer si gaaraan ugu mahadnaqayaa cabdirasaaq cataash marka waxaan kaa qoraynaa maanta cabdirasaaqow inaad ganacsado tahay cabdirasaaq cataash ah laakiin mabda ahaan mowqif ahaan iyo aaminaad ahaanba aad ku daba feeshan tahay qadiyadda laascaanood golahaasi dhaqanka iyo guddiga 33 ah iyo wixii ay ku taliyeen cabdirasaaqow eeg marka laga hadlayo golaha dhaqanka waan kuu sheegay qof kastoo deegaanka iyaga ka soo jeeda go'aan aanay ahayn bulshadaasi go'aanay gaadhin uma aha go'aan matalaadeedu cidna ku mateli karto ama aniga ha noqdo ama qof kale toonna ha noqdo taas markii hore aan kuu caddeeyey waxaa timidta siyaasaddii totally halkaasaan dhigay wax allaale iyo waxay noqoto anigu qof ganacsadaha baan ka noqday meeshay doonto ha noqoto marka halkaas weeye meesha aan rabo inaan kala saaro go'aan iyo talo waxa u ah ummadda aan ka soo jeedo go'aanka isimada ay gaadheen iyo dadka ayagu ay sameeyeen ee 33 ee guddiga taasaa talo oo ah oo aan qof kastoo deegaanka iyaga talo oo ay go'aan ama hadday noqoto siyaasadda anigu ganacsi baan u leexday awalla ganacsadaan ahaa cid allaale iyo ciddii siyaasad ka shaqaynaysa ayaa markaa kala shaqaynaysa isimada wax allaale iyo wixii intaa ka baxsan cabdirasaaq waxyar aan dib u noqonno 2 jeer aad wasiir noqotay marna madaxweyne siilaay aad wasiir u ahayd hadda oo u dambaysana madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa kaloon ognahay inaad muuse biixi saaxiib dhow ahaydeen oo xitaa inaad urur furato oo reerahaas aad adiga ka dhalatay ay xisbi yeeshaan yaad ku heshiiseen baa la yidhi ogaalkayga adiga muuse biixi xageed ku kala leexateen su'aal fiican cabdirasaaq horta marka hore kala leexashada muuse biixi horta marka hore anagu saaxiib soo jireena oo isyaqaanay maanaan ahayn anigu dalka 12 sano kahor baan kusoo noqday qurbad ka soo noqday xilligaa un baan la isbarnay 12 sano tan kale saaxiibtinimadan dhowey siyaasadeeda hadda aad ka hadlaysana horta Soomaalidu waxay tirahdee siyaasaddu saaxiib joogtaa male dan joogtaa bay leedahay madaxweynahana waxa aad loogu xantaa inuu leeyahay dan joogta ah aanu saaxiib joogtaa lahayn xilligii anigu aan ururkan furayey iyo xisbigan aan furayey qadiyadaydu qadiyad cad bay ahayd oo markhaatiyaal leh dadkana waxaan rabaa inay dhegaystaan maanta oo ay ogaadaan waxay markhaati ku lahayd ujeeddada keliya ee aan anigu siyaasadda ugu noqday oo aan xilligii silaanya ka baxay waxay ahayd dhibaatada ka taagnayd gobollada bari haddaad qof walba khudbadahaygii uu dib u dhegaysto ama youtube-ka ka eegana wax kale kama hadli jirin anigu dadku qabyaaladana inay iska daayaan ayna dadku u midoobaan noloshooda in ay noqoto inay dadku isaqbalaan oo wax ka dhexeeyaan ummadda wax loo qaybiyo marka muuse biixi waxa ay ahayd xilli uu aniga uu soo bandhigay inaan ku biiro xukuumaddiisu aan wasiir ka noqdo condition baan ku xidhay conditionkaan ku xidhayna wuxuu ahaa in dadka iyaga dhibaatada haysata dadka aan ka soo jeedo ee gobollada bari dhibaatada haysataa inay ka weyn tahay mid wasiir xallin karayo sidaa daraaddeed
inaan leeyahay han ah inaan dalka madaxweyne ka noqdo oo aan ka qayb galo tartanka ururada iyo xisbiyada aan ka mid noqdo arrintaa haddii madaxweyne ka ahaan uu diyaar u yahay dalka in la miisaamo taladiisa oo taladan gacanta beesha dhexe ku arurtay laga furfuro oo lala yeesho dalka taladiisa in markaa aan muddadaa uu furayo xisbiyada iyo ururada aan sii noqon karayo wasiir maalinta uu ku dhawaaqana aan ka baxayo madaxweynuhu taasuu ballan qaaday musabixi maanta waxaan malaynayaa dee ummaduna way dhegaysanaysaa isna inuu dhegaysan doono horta tuu ballan qaaday taasay ahayd ta markii dambe aan ururka ku furnayna taasay ahayd maalintii ururada uu furay ta aan isku casilayna sidaasay ahayd ta hadda meesha ka baxdayna waa tii waxayna meesha ka baxday wixii laascaanood ka dhacay baa ka saaray totally oo maaragtay dee keenay dadkii aan ku matelaynay siyaasadda aan doonaynay inaan ummadda kusoo darno dee maanta waa kuwa halkaa maraya oo halkaa la gaadhsiiyey marka taas bayaan horta midda aniga iyo musabix naga dhexaysay dan gaara nagama dhexayn haba yaraatee waxaa naga dhexaysay dan qadiyad oo anigu aan ku xidhay oo condition ahayd in dalka aan doonayo dadkiisa inaan isu keeno heshiisiiyo oo ummadda tabanaysa wax 30 sano dhibaataysan ciidamada inta dalkii lagu wareejiyey haddana wax development iyo horumar iyo amni aanay ka jirin in meesha laga saaro si dadku isu raaco intaasay inta naga dhexaysa tiin hadda way dhammaataad leedahay way dhammaatay taasi waxay ku soo afgo'day wixii laascaanood ka dhacay cabdisaaqo